maamulka curdanka galmudug oo hadda 5 bil jira wuxuu ku guuleystay xaqiiqatan guulo la dhihi karo muddo dheer ayay ku gaaraan gobollada kale ama meelo badan muddadaas kooban waxay galmudug ku guuleysteen inay dhisteen hay-adihii xukuumadda ama maamulka ugu horeeyo baarlamaanka ama golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug oo dhammaan hadda heerarkiisii kala duwanay iyo gudiyadiisii loo dhisay howlna galay baarlamaanka wuxuu ku guuleystay inuu guddeen doorto gudiyadiina dhisto qorshihiisana degsado madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenna doorto sidoo kale waxaa lagu guuleystay muddadaas in dib u heshiisiin siyaasadeed loo sameeyo dadka reer galmudug mucaarad iyo muxaafidba ay isugu tagaan galmudug laguna wada qanciyo kuwii hore iyo kuwii dambaba inay maamulka galmudug ka wada mid noqdaan waxna ka wada dhistaan xil wareejintii maamulkii hore sidoo kale waxaa lagu guuleystay dhismihii golaha xukuumadda waxaa lagu guuleystay deegaano badan oo ay ka dhaceen colaado in la nabadeeyo waxaa lagu guuleystay in laysu furo deegaanada galmudug oo maanta meesha ay marayso ay tahay in xuduudka haddii aad ka gasho galmudug degmada matabaan ilaa aad ka gaarto gaalkacyo qaybteeda koofureed aysan jirin haba yaraatee wax isbaaraa iyo wax ku istaajinayo haddii aad ka baxdo caasimadda galmudug aad ka tegayso xuduudka aan la leenahay ismaamulka dowlad goboleedka Ethiopia aysan jirin wax ku celina iyo waxaad ka baqayso oo habeen iyo maalin aad socon kartid nabaddu sida ay tahay galmudug waxaa hadda hawl bilaabay xukuumadda cusub dabcan xukuumadda cusub barnaamijkeeda la ansixiyey waxaa ugu horeeyo xureynta iyo xasilinta degmooyinka bari galmudug oo aan rajaynayno in maalmaha soo socdo hadduu alla yiraahdo laga howlgeli doono waxaa la socotaan beryahan inuu joogay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed galmudug oo ku sugnay oo aad iyo aad u dhuudhuujinayay una habeynayay ciidamada galmudug oo aan dhihi karno maanta waxay soo gaareen ayaga laftirkoodu heer ay amniga galmudug gacanta ku hayaan una suurto gashay inay muxuu ahay dhammaan wixii isbaarooyin yiilna ay qaadaan argagixisadana ay gacan birahoo adag ku qabtaan galmudug waxay hadda uu safar ku marayaa madaxweynaha iyo qaar ka mida golihiisa wasiiradu deegaanada galmudug oo aan rajaynayno in la bilaabi doono hawshii mar dhow dekedda hobyo iyo soo celinta muxuu ahay kaabayaashii dhaqaalaha dibna loo hagaajin doono hayraboorada iyo dekedaha galmudug hawshoodiina la bilaabay sidoo kale galmudug waxay gacan ka geysanaysaa oo diyaar u tahay howlaha halkan ka socdo federaalka iyo doorashooyinka la filayo taas ayaana keentay in baarlamaanka guddoonkiisu ay ka soo qayb galaan furitaanka kalfadhiga halkan iyo qaybaha uga aadan galmudug waxay diyaarisay aragtida ay ka qabto dib u eegista qabi qoraalka dastuurka ee la rabo federaalka in la ansixiyo ka hor doorashada inta aan la gelin qorshuhu uu ahay in la ansixiyo bishii la soo dhaafay baarlamaanku laakiin uu kalfadhiga dib u dhac ku yimid galmudug hadda waxaa ka socda olole xoog leh oo looga soo horjeedo ama wax looga qabanayo cudurkan aafeeya dunida coronavirus oo hadda laga diyaarinayo degmooyinka qaar badanna la diyaariyey cisbitaaladeedii in dib u habayn lagu sameeyo
si ay uga qayb qaataan dhibaatadaas hadday dhacdo ama meelaha qaarba dhacdooyin ay ka dhacdhaceen howl baaxad leh ayaa halkaasna laga wadaa hadda waxaa dib u habayn lagu samaynayaa arrimihii dhaqaalaha galmudug waxaad la socotaan galmudugtii hore maamulku inta badan inuu federaalka kaliya iyo muxuu ahaay ku xirnaay xag ciidan iyo xag dhaqaalaba laakiin hadda galmudug waxay wadaa qorsho ay ku abuurayso dakhliga gudaha ama habkii muxuu ahaay dhaqaalaha gudaha loo qaadi lahay iyo canshuurtiba hawshaasna waxaa xoog uga shaqaynayo wasaaradda maaliyadda oo hawsheedii bilowday waxaa noo socda hadda oo bilowday ayadana dhismaha golayaasha deegaanka oo furay madaxweynuhu oo aad la wada socoteen wasaaradda arrimaha gudaha iyo baarlamaankuba ay iska kaashanayaan sidii loo dhisi lahaay golayaashii deegaanka ee ka imaan lahay degmooyinka oo aan rajaynayno galmudug hadduu ala yidhaahdo inay ugu hormari doonto gobollada kale ama ay uga hormari doonto baarlamaanka soo socdana oo si rasmiya uga imaan doono halka hadda uu ku yimiday qaab beeleed oo ku imaan doono hadduu alla idmo deegaanada ama golayaasha deegaanka oo ka imaan doono haddana la bilaabay oo reedi oo aad maqasheen in laga furay cadaado gaalkacyo dhuusamareeb fayska hore ilaa 6 degmo laga samayn doono hadduu alla idmo feeska ku xigana degmooyinkan la xoreeyey ayagana laga samayn doono golayaasha deegaanka iyaduna hadduu alla yidhaahdo waxay rajaynaynaa inay loo dhammaan doonto sanad gudihiis oo galmudug ay yeelan doonto dowladihii hoose iyo dowladdii sare ama dhexaba si ay ugu suurto gasho doorashada baarlamaanka soo socdee galmudug inay ka yimaadaan deegaanada halkii ay ka imaan jireen awal beelaha marka qorshahaasna waa noo socdaa waxaan rajaynaynaa insha allahu galmudug inay ku tallaabsan doonto bilaha iyo sanadada soo socoto horumar iyo guulo la taaban karo hadduu alla yidhaahdo sidoo kale waxaan soo dhowaynaynaa dowladda federaalka iyo doorashooyinka lagu dhawaaqay dalku gelayo waxaana ka qayb qaadan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo sida dadka soomaaliyeed ay u soo dooran lahaayeen wakiiladooda markii ugu horeysay 20 sano kadib dadkii sida rasmiga ahay u matelayay waxaana diyaar u nahay galmudug haddaan nahay insha allahu inaanu dhammaan degmooyinka galmudug laga qaban doono doorashada federaalka xildhibaanaduna ay tegi doonaan deegaanada loo asteeyey kana soo geli doonaan si aan lahayn qaabkii hore ka duwan hadduu alla yidhaahdo arrintaasna diyaar garowgeedii ayaan bilaabaynaa mar dhow